Ukraine duqeymaha Ruushka ayaa ku dhuftay bartilmaameedyo badan oo rayid ah oo ku yaal Ukraine oo bilaabay dab ka kacay isbitaal ku yaal magaalada isla markaana waxyeello u geystay 5 dhismo oo dabaq ah. Mas'uuliyiin maxalli ah ayaa sheegay Talaadadii, iyadoo mas'uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in ciidamada Moscow ay ku ururiyeen aagaga bari ka hor waxa Kyiv uu ka shakiyay duulaan cusub oo uu Ruushku ku soo wajahan yahay sanad guuradii ka soo wareegtay duulaankii. Isbitaal ku yaal magaalada Vovchansk ee waqooyi bari dalkaasi ayaa dab qabsaday goor dambe oo Isniin ah kadib duqeyntaasi, sida ay sheegeen ciidamada gurmadka ee gobolka Ukraine. Duqeymaha ayaa sababay in dhowr dab ay ka dhaceen magaalada oo ay ku jiraan isbitaalka dowladda hoose oo 2 dabaq ka kooban, sida ay ku sheegtay bayaan internetka ah oo ay soo saartay waaxda gurmadka degdega ah ee gobolka waqooyi bari ee Kharkiv. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa goobta ka daadgurayay 8 qof oo rayid ah ka hor inta aysan damin dabka, mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay dabka sida ay sheegeen maamulka. Vovchansk waxay ku taal gobolka Kharkiv oo uu Ruushku qabsaday kadib markii uu si buuxda u soo galay 24 Febraayo, kadibna ay dib ula wareegeen Ukraine intii lagu jiray weerar rogaal celis ah sanadkii hore. Diidmada Ruushka ee la filayo ayaa laga yaabaa inay raadiyaan inay dib u qabsadaan dhulkii Moscow ee ku luntay weerarkaas rogaal celiska ah. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay inay filayaan in dhaqdhaqaaqa cusub uu ka dhaco bariga iyo koonfurta Ukraine, iyadoo Kremlin ay isku dayeyso inay sugto goobaha ay sida sharci darrada ah ula wareegtay oo ay ku andacoonayso in lagu soo dhoweynayo maamulkeeda. Ciidamada Ruushka ayaa isku urursanaya iyagoo isku dayaya inay jebiyaan qadadka Ukraine 5 goobood oo ku yaal bariga iyo waqooyi bari ee dalka. Militariga Ukraine ayaa sheegay Talaadadii. Saraakiisha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay in Moscow ay xoogga saarayso dadaalkeeda meel u dhow magaalooyinka Liman, Bakhmut, Avdiivka iyo Novopavlivka ee bariga Donetsk iyo sidoo kale Kupiansk ee gobolka Kharkiv. Gobolka Donetsk, ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale sii waday duqeymaha ay ku hayaan Vuhledar, oo ah magaalo macdanta laga qodo oo ka mid ahayd bartilmaameedyada muhiimka ah ee Moscow, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada Ukraine. 5 dhismo oo dabaq ah ayaa lagu burburiyey magaalada, xafiisku wuxuu sheegay, kuwaas oo ay ku noolaayeen dad gaaraya 4 eber ka hor dagaalka. Gobolka Donetsk ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay qulqulka ciidamada Ruushka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Pavlo Kirilenko. Wareejinta cutubyada ciidamada Ruushka waxay socotaa habeen iyo maalin. Duqeymaha Ruushka ayaa sii xoogaysanaya, cadaadiska Ruushka ayaa sii kordhaya maalin kasta. Kirilenko ayaa sidaa ka sheegay telefishinka Ukraine. Ruushka ayaa sidoo kale isku diyaarinaya weerar culus oo lagu qaado bariga Luhansk oo si toos ah dhanka waqooyi uga beegan Donetsk, sida uu hadalka u dhigay telefishanka maxalliga ah Serhiy Hayday. Tirada weerarada Ruushka ee gobolka ayaa kordhay si aad ah Isniintii iyo habeenkii, ayuu yidhi. Dadka qabsaday waxay raadinayaan meelo daciif ah, waxayna keeneen qalab badan iyo kumanaan ciidamo ah jiidda hore, ayuu yidhi Hayday. 12 magaalo iyo tuulooyin ku yaal waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ayaa sidoo kale la kulmay duqeymaha Ruushka 24 saac ee la soo dhaafay, sida uu sheegay xafiiska madaxtooyada. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyey kor u kaca dagaalka xilli jiilaalka uu sii dhammaanayo. Rajada nabadda waa sii yaraanaysaa iyo fursadaha sii xumaanaya iyo dhiigga daadanaya way sii kordhayaan, ayuu ku yidhi hadal uu jeediyey dabayaaqadii Isniintii. Dib u dhacyada goobaha dagaalka ayaa weji gabax kala kulmay aqalka Kremlinka, waxaana madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu aad u danaynayaa in uu taageero shacabka ku bixiyo dagaalka. Xaqiijinta xukunka Kremlinka ee gobolka warshadaha ee bari ee Donbass oo xuduud la leh Ruushka ayaa la filayaa inay noqoto ujeedo muhiim ah. Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha militariga ayaa shaki ka qaba, si kastaba ha ahaatee, awoodda Ruushka ee ah in uu qaado weerar cusub toddobaadyada soo socda.
Ukraine iyo Ruushka ayaa labaduba weli tababaraya ciidamadooda cusub iyo hub urursi. Wasaaradda Difaaca ee Boqortooyada Midowday UK ayaa qiimeyn ku sheegtay Talaadadii in Ruushka uu u baahan yahay unugyo aan khibrad lahayn si ay u gaaraan ujeedooyin aan macquul ahayn sababtoo ah cadaadis siyaasadeed iyo mid xirfadeed. Hogaamiyeyaasha Ruushku waxay u badan tahay inay sii wadi doonaan inay dalbadaan horumaro la taaban karo, ayay raacisay. Weli uma badna in Ruushku uu dhiso ciidamada loo baahan yahay si ay si weyn u saameeyaan natiijada dagaalka toddobaadyada soo socda. Michael Kofman, oo ah falanqeeye militari oo Maraykan ah, iyo agaasimaha daraasaadka Ruushka ee CAN, oo ah hay'ad cilmi baaris oo ku taal Arlington, Virginia, ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray Isniintii ma cadda sida weyn ee weerarka Ruushku u awoodo inuu kordho. Waxa uu ku daray, laakiin waxaan ka shakisanahay in ay muujin karto mid liidata oo inta badan diiradda saaraysa Donbass. Dhanka kale, duqaynta ayaa cadaadis ku haysay shacabka rayidka ah ee Ukraine deegaano ka tirsan dalka. Ruushka ayaa qaaday 6 gantaal iyo 2 darsin weerar oo cirka ah iyo 7 dhacdo oo duqayn ah oo lagu garaacay bartilmaameedyo rayid ah oo ku yaal Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk iyo Kherson 24 saac ee la soo dhaafay, sida uu bayaan uu soo saaray taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ku sheegay Talaadadii. Qiyaastii 6 oo qoys oo ku nool Marhanets ayaa biyo la'aan looga tegay kadib markii duqaymaha Ruushka uu ka geystay meel u dhow warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ay gooyeen korontadii xarun shidaal oo maxalli ah, sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Mykola Lukashuk, oo madax ka ah golaha deegaanka Dnipropetrovsk, ayaa ku eedeeyay ciidamada Ruushka inay rasaas ku fureen magaalooyinka iyo tuulooyinka deriska la ah warshadda Yurubslar. Gest, oo wata madaafiic culculus iyo gantaalo badan oo habeenkii ah,